Somaliland dhanka wada heli karin sidoo uu matalaya waxa la wixii ilmaha wadana iyo umusha wadana jamhuuriyadda Somaliland halka waxaad ku joogtaan mas'uuliin ka soo jeeda gobolka Awdal isla cali xaamud jibriil oo saaxiibka muddo dheer soo ahaa wuxuu sheegay in maanta madaxweynaha Somaliland madaxtooyada uu ka celiyay arrinta maxay ka jira inaan dan gaaro gobol ama dan gaaro cid u hadlayo waxaan toddobada cisho u dambeysay ka seexan lahay culays badan oo arkayo oo ka imanaya arrintaasi ayaan arkayaa sidaa darteed marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Somaliland saxaafadda horteeda taagan iyo madaxda sharafta badan ee halkan shirka jaa ku wada qabanayno halkan uma soo joogsanin aniga oo gobol matalaya aniga oo urur matalaya iyo anoo xisbi matalaya mid uga soo joogsan sida saaxiibada igu horeeyay ay sheegeen waxaan ku soo joogsanay maanta qarankii Somaliland sidii loo badbaadin lahaa yaana ka maanta soo joogsanay sida maanta reer Somaliland ka dharagsan yihiin saaka waxa la ansixiyay xeer la midiroorsteeyay oo mid dana gaar u adeegaya oo adeegaynin danta guud ama danta guud ee ummadda reer Somaliland oo adeegaynin sidaa darteed iyadoo la tixraacayo qodobada 8aad 9aad iyo 12aad ee dastuurka qaranka kuwaas oo qeexaya wadajirka wax wada lahaanshaha iyo sinaanta muwaadiniinta ee xaqqa doorashooyinka ayaa xeerkan la ansixiyay wuxuu baal maray inuu duudsiyo qaybo ka mid ah bulshada inuu maartay xaqooda duudsiyo sida darteed faala dheer anu gali maayo waxa faalada bixiyay xildhibaanadii iyo wasiirka bixiyay waxaan leeyahay reer Somaliland ayaanta maanta reer Somaliland qaranka ku sugan xeerkaasi maanta hadduu lagu midiroorteeyay golaha guurtida oo xoog lagu dhaafiyay iyadoo in gaar loogu adeegayo waxaan leeyahay xeerkaasi mar labaad iyo qaranka jarka tuurin Soomaalidu waxay taada hasho la amaartay laantii aragtay Soomaalidu raga doorasho doonka ee haddana xeerka midiroorteynayay waxaan isleeyahay wax badan ba ka khaldan waxaan leeyahay ayaanta reer Somaliland golayaasha qaranka hawshaasi waxay kala kaxaynaysaa qaranka reer Somaliland bay kala kaxaynaysaa sidaa darteed waxaan leeyahay reer Somaliland waxaa leeyahay maanta gurmad qaranka loo sameeyo xeerka dabada laga eriyo ee waqtigiisii la dhaafinayo ee golayaasha loo sharaxayn in la maartay aan laga doodaynin ee duuduub lagu ansixinayo waxaan leeyahay qarankii Somaliland dimuqraadiyadda ku soo dhaqnaa ee doorashooyinka qurux badan ee adduunyada ugu majeerato ku soo dhaqnaa ee laga soo bilaabo 2002 ilaa maanta doorasho ay rina riirdiin aynu ka dhicin oo nabadgelyo u dhamaatay waxaan qabaanu maanta haddii aanan hay'asha laga gurmanin in doorasho la eedo ay ka dhici doonto qaranka Somaliland dalka Somaliland sidaa darteed cid kasta oo aqoonyahan oo culimo leh oo la ganacsato leh oo la maartay madax dhaqameed leh waxaan leeyahay laga gurmado qodobkaas maanta xeerka maanta la midiroorteeyay barina lagu wadayn saa lagu sii wado أنا وحلا اللهم بلغت من له أنا أفقرن كهاليا دمت قرن كواي وليس كذا وايسو وليجين إنتان أفرد توبس أنا سوي جوه قرن كسومالان وليجوا مبقين ما تورتين ما تسوون بقيا عدي وعيب سنة هاي وعيب سو واركسا إن دنقارو قبل ما دنقارو عد وهاليو وحن تضبط عشوا دبيسك سيحن لاهي وليس بدنا نركيو أو كإيمانيا أرتاسي يعني ركيا سادرتين Somaliland ka gurmato maanta hawshaasi intay dhibaato kale noo keenin iyo doorasho lagu murusan yahay oo aan rabtay si wanaagsan ugu dhicin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستة صار بدك كودا وانا يعني مقال ستة صار مدحين وسعدا لبس سؤالاتنا كويدين يعني. تكمل واحد تلميذ مدحين كحجة شعب السومالان يعني أنت كهذا يروح ليه أورك أنتوني بيرسنت سومالان لك وده اللي كان سدوا متريا. طلباتنا حتى مدحين كي جمهورية السومالان
halkan waxaad ku joogtaan mas-uuliin ka soo jeeda gobolka awdal isla cali xaamud jibriil oo saaxiibka muddo dheer soo ahaa wuxuu sheegay in maanta madaxweynaha somalilan madaxtooyada uu ka celiyey arrintaa maxaa ka jira taas waa laga jawaabay horta cali madaxtooyada adigu waa laga jawaabaan ku taa kuma noqonayo tan kale sheegayso waxa la wixii ilmaha u dana iyo umusha u dana wax boqolkiiba 20 iyo guurtida oo maanta maxay institution nagu aqoonta badan leh oo muddo jira 3 sano jira wixii golahaasi wakiilo soo sameeyeen wixii ka khaldamay raga wayaarnimada balhayn waxa soo saxay golaha guurta soo saxay waxay soo saxay wayaarnimadooda ku arkeen in maanta boqolkiiba 20 ayna dhaqaynin matalaadii ururba ku helaa gobolka wax ka helaana maanta waa laga reebay markii laga reebay golaashtiga laga reebay ururka reer ka soo jeeda gobolka Sanaag ka helmay cod gobolka kala ka helmayo sababta cid uga wakiila oo maanta xambaaraysay ma jirto sidaa darteed maadaama madaxweynayaasha qaranka xukuumadda lagu doonayo haldheer lagu doonayo war danteen wax ku jirtaa ama ummadeena inay isku hayno ku jirtaa inay haldheeriga lagu codeeyo oo lagu maarjira askariin qofka gobolka ay leedahay halka ku dad gobolka kaliya dhaaf weydo ma helisideen xuquuqda dalka inay u tartanto ma laga yaabaa adiga madaxweynaha arrintan muddo kordhin ku rataan sida dadka qaar leeyihiin oo meeres